بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد daawadayaal marka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni nutritionka iyo dietka ama nafaqada iyo cuntada maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo haduu Allah awood leh idmo 5 faa'iido oo ay leedahay liinta aan u naqaano liin dhanaanta ama liinta kalarkeedu uu yahay yellowga noocan oo kala ah laba liin dhanaan ayaa jirta liinna waa green liinna waa yellow liinna waa jaalle liinna waa cagaar tan faa'iidada badan oo la rabo mar walba inaan isticmaalno dadkeenu ay ku yiri in isticmaalaan waa liinta noocan u eg ayaa waxay ka faa'iido badan tahay liinta kale ee greenka ah marka 5 faa'iido oo ay leedahay ayaan jeclahay in aan idinku soo gudbiyo videogan haduu alla idmo liintan faa'iidada koowaad ee leedahay waxaa kamid ah waxay ku siinaysaa vitaminada noocyada kala duwan ee jirkaaga u baahan yahay gaar ahaan ama qaasatan waxay ku siinaysaa vitaminka loo yaqaano vitamin C-ga waxa uu taraa wuxuu ka hortagaa jirkaaga in uu cimri degdeg ku dhaco ama jirkaaga inuu isku yimaado oo mataqaana isgalgal uu ka hortagaa vitamin C-ga xataa markaad heshid waxa uu daawo u yahay ama waxa uu ka caawinayaa in ma garanaysaa hargabka oo kale uu kala dagaalamo waxyaalaha kale ee jirkaaga ku imaanaya marka liintan faa'iido koowaad aan sheegnay waxa laga helaa aan dhahnay vitaminada noocyada kala duwan leh qaasatan ama gaar ahaan vitamin C qodobka labaad oo liintan laga helo waxa waaye liintan waxay ku fiican tahay hadii aad rabtid hilibka culeyska leh ee jirkaaga saaran in aad iska ridid ama weight loss waxa loo yaqaan aad sameysid liintan aad ayay kaaga caawinaysaa xaqiiqdii waxaad sameyn kartaa maalintii 5 koob 6 koob 3 koob waxaad awoodid oo ama biyo caadi ama biyo kulul ayaad waxaad ku miiraysaa liin dhanaanta ah liin jaallada ah liinta yellowga loo yaqaano ayaad ku miiraysaa kadibna biyihii ayaad cabaysaa hadii aad 3 jeer 4 jeer 5 jeer maalintii cabtid muddo ilaa 4 usbuuc oo kale awoodid waxaan insha Allah ku ballan qaadayaa in aad wax weyn askaga heli doontid inaad weight loss aad sameysid haduu alla idmo marka liintan weight loss hadaad rabtid inaad sameysid ama hilibka culays kale ee jirkaaga saaran rabtid inaad iska ridid aad ayay kaaga caawinaysaa liintan faa'iido kale oo leedahay waxa waaye waxay la dagaalantaa kansarka waxay leedahay 22 maado ayaa ku jirta liintan oo ka hortaga xanuunka ama cudurka loo yaqaano kansarka ilaahay ha naga qabtee ayay liintan 22 kaas maado ayaa laga dhaxlaa marka hadaad cuntid ama aad badsatid isticmaalka liintan faa'iidadaas ayaad ka helaysaa haduu alla idmo liintan faa'iidada kale oo ay leedahay waxa kamid ah xididada dhiigaaga qaada dhiigaaga uu ku socdo ayay sifeynaysaa marka liinta da isticmaalsid xididkii dhiigaagii ayay mataqaana si fiican ayay mataqaana u sifeynaysaa oo xididadaadii ayuu dhiigii si fiican u marayaa marka wuxuu ka saarayaa waxyaalaha dhiiga kaga jira dhexda ama clot-ka loo yaqaano mataqaana sometimes adkaada ee dadka xanuunada ku keena ayay liintan ka caawinaysaa in ay ka clean gareyso ama ay ka nadiifiso marka insha Allah ha lagu dadaalo faa'iidadaas faa'iido muhiim ah waaye waadna arki doontaa haduu alla idmo faa'iidada shanaad ee liintan ay leedahay waxa waa liintan waxay ka hortagtaa bakteeriyada kala duwan ee jirkaaga ama baadigaaga cadawga ku ah ee ku soo food saaraya maalin alla keeno sababtoo waxaan ka soo hadalnay fluga oo kale hargabka oo kale liinta hadaad badsatid in uu ka yaraado laga yaabaa hadii hargab uu ku hayo liintan aad badsatid aad isticmaalkeeda hargabkii inuu ka taga laga yaabaa biidnillahi tacaala liintan waxa waaye bakteeriyada kala duwan ee ama dhuunta ku dhaca ama gacmaha ku dhaca ama taqaana jirka siisa kale ku dhaca cadawga ku ah liintan way ka hortagtaa marka 5taas faa'iido waa 5 faa'iido aan isleeyahay dadka walaalaha ah la wadaag